مسؤوليات بان صارن إلهي أكتيس dadka abaaraysan raashinkaasna loo dhiibay dad jeebabkooda ka soo rusheeyay bixiyay ummadda qof walba waa baahan yahay laakiin way kala baahi badan yihiin ilaahay baa noogu naxariisanaya risq badan oo waxaan helaynaa ilaahay loo qaado waa maasantii daladiina odayaa wariya kaale adeer okay raashinkan dadku waa wada baahan yahay dadka soo ururiyay anagu ballamaan ka qaadno dadkayga xamaalaya oo shaqaynaya raashinka wax kama qaadan haday gaajinaas hadii qaqligu duuyeen dadka aad wakiilka tihiin dadka ugu baahida badan oo marka aad kala eegtaan loo gar dadka ugu baahiyaysan yihiin hadda waxa jira halka loo soo dhigayo oo awal la loo soo madqoros maya waa qoysku maya qoys degeysad kuwa kala geesko wax ka qaadan marka waa hadda halka ka qaadanay anaga maxay halkaan degeeyeen soo marayo gudoomiyaha ku qoran yihiin oo ku jiraan reecis hadii laga reebo waa hadda ku aamin la joogay kuwaasi aamin ma idinma joogaan halka gabar joogta ka wakiila loo yeeray askar aamin kuuguma jiraanba kaay adka yaa la socdeen kuwa waa xagee wareerkeeha shalay waan ka soo qaaday imise qoys baa ahaydeen afar qoys oo reer boqol yahay qolyaha igu shaqay maxay ahaayeen gubasoor aye ya baamreexan laba reer baa la disay labada reer ba afartiin u qaybsanaysaan raashinkan afartiin u qaybsay ya saxna way waxa laga dareynaa leero macaan arayag maanta lixqad waa caq galabta boota biyana si dadkii baa caqday iyaguna galabta boota biyana si tan hadana tan kada wariyaha ma bawatan kawan oo qaad inaadeen biyo dhaamiskii magaalada waxa kala hadlaysaa أو مرسل دوق حين كبير بالمرسل أنتك نقاودي كذا مرسل بيدا من وصل كمان عقبان بشيء هذا أفرت قوي شوية أفرت حاجاتك أنت هذا اللي ما أدري أنت مركب واحد يليسان واحد يليسان وركاسنا واحد نوشة هذا واحد كتيرنا واحد ما يدري قلبت ملك هذا دتك عن شعلة أنا وحلانة كتير واحد كستو إنه يلا وساس النقطة سلاس كلا النقطة أنا ودتك عن رمنا إلى وحشان طيب وحجاران بكوكتان ورك هذا نوشة مركب واتسنين وإلا قلبتي واتسنين إلا قلبنا واتسنين خير الله يسيو أنا وانا بالله هذيك الواحد الله إلى أين هو waxaan raashinkan waxa laga soo dhiibay guddiga abaaraha gobolka Mudug oo maamulka gobolka Mudug ka mid yahay iyo culimada iyo odayaasha qorshe ay u dageen in ay abaaraha u gurmadaan oo bilow u ahaa waxa loo soo dhiibay dad cayiman laakiin dadku qaab wax u kala qaybiyaan laakiin qaybtaas dad cayiman baa kule marka soo qaado raashinkaas waxa leh dadka sakadu ay ku baxdo waa 8 qolo oo wacyiban waa tilmaan bay leeyihiin dadka oo dhan waa baahan yahay bini'aadanka xabaasha inuu dhinto ayaa baahida uga baada laakiin dadku ay yiraahdaan reerkaas dabka duumiyaa isla ogay oo magacaad u qaadeen baa raashinka leh 5 walaal ah oo meel degan yahay hadday 5 baahan oo loo arkay inay baahan yihiin hebel oo baahan baa la siiyay kuwan yaa la siin ma aha oo jifo ma aha dadka baahan ina raashinka gaarsiisaan adunkuna amaanada la wareegtaan oo ka shaqeysaan ilaahayna uu marxaati idinka noqdo intaasaan noqday anaga intaasaan loo soo dhiibay raashinkaas intaan ogahay hal kiishna qof shaqaalaha kama qaadan iyo dadka inta ka shaqeynayay
وين سلام أنتنا هرت ماشى دوبان ين مغنبا سلام بعد جد قدون شو وحنا الشيء راشين كاس إلى هاي نوكيني ودت كاس أبارة ولبحي إهلك dad bay ugu soo tala galeen dadka in la gaarsiiyo qolol bayada iska warqabta in la gaarsiiyo bay xaq u yahay maganaysa annagana waa la soo xil wareegnayo odayaashii loo dhiibay inaanu arinta taleeya dib ugu noqono wixii baahan fiirino aanu waxaas gaarsiino ilaahay baa wax gaarsiin kare baa go'aanku inoo yahay sidaasaan wax ku qaadaynaa oo la wareegnay allah idin fududeeyo maamulka dadka muxsanaadka isku jira soo dhiibay 200 oo qoys ba waxa loo soo dhiibay degmada Jiriban waa u jeedino qabaa'ilada markii loo qaybiyay 5 iyo 8 iyo 4 qoys u heleen waa dadka muxullada intuu leeyahay wadanka iyo qabaa'ilada raashinka dad gaar ah ayaa loo calaamadiyay dadka baahan oo dadka u baahan kulligana baahan waxa jira waxa baahi iyo rabitaan qof walba waxbuu rabaa janna inuu milyaneer noqdo laakiin baahida waxa way inaan maanta qadeeyo waxaan ka saaysta waa baahida ugu hooseysa weey dadka magaalada wax kuma laha qof magaalo jooga cidii wax ka siisa waa cid ballantii axdiga ka baxday dadkaasna wax aan loogu talagelin bisiis risqooda ilaahay baa magaalada waa joogaan dadka baadiyaha loogu talagalay hadda markii hore abaaraha lacagta aruurin magaalada kaliya u qaybin baadiyo wax kuma lahayn kan baadiyaha leh baadiyahana waxa leh say u kala mudan yihiin dadka ugu hooseeya haddii 5 reer oo walaal meel degan yahay ayeen dadka ugu mudan waa reer hebel oo nin baa la siimay 5 ayaga ugu mudan marka raashinka dadka baahan adinkana waxaan rabnaa inaad mas'uuliyadda inta qaadaan culimadiina waa tihiin oo hadda ilaahay fadliga culimadii baan kala kulannaa qolaba cid baan ku meeyay raashinka waxaa la rabaa marka in dadka aad ka wacyigelisaan dadkana qaabka wax loo kala tuurto aad inta ka saartaan dadka baahan jifada dhexdooda iyadoo ah jifada isku mid maaha dadka baahan in la gaarsiiyo علينا أم حسينينا ما هو حق على إنه كنتي وحمل كان لقى كياني ولا عليه إن شو قبل قال كعيود أباب أي قلين بينو كوكينين لبب بقول أو هير بوها وباديها دقن وهير كلية صد حافي عاقد سرير هل كانوا نوجي مادين ونوجو ريتشين وحير وكيل بانوجتهين قارسية ذاتك باديها كل بن أنا قلنا وأقبل لي إذن كأنتي ما أنت شوكتو أيضا كوريتشني أو عدة باديها كتب من وكيل بانوجتهين باهد وابلانتها وأغنهاي لكن وين كل اللي ذنه حدين إنه نذاهنا أنت إسوني ما نور عاقة بيها هاي سناي رير كل ليته واللي رير بالليته اللوجو يجوا عن ورها إنه ليه هويا وحين هيري الهين وأنا كم قاين هذا وحين كم قاينين إن أنا جو إسوسو تاجو يلا ولا الكي بختي إسوسو تاجو عاقة بيها كتير وحنا اللي جربها إن نراهنه يا كور قبل هبل ما أنت سيء هاي ساسوي هاي وروح اللوجي هلا قاضو اللوجي ما أنت وحاسة إيرو يذهب هلا سي واسكور قمنا إنه إتنا واسكور قمنا قول أنا كور قمنا شو أنسى سفرادينه أنت أسا إنه بلنا وقت ساعة كجبحنا وحي إنه يمادن ساعة إنه هذا متعالى إن شاء الله تعالى ساعة إنه هذين هاينو ساعة إنه بلنا والسلام عليكم ورحمة الله نسول ويننا وحي هات أنتك مساكين تام مسلم كهاد وحوس ولي بينا وسؤال الله سوق الجارينا وسول ويننا تدكو سكمد معهن تدبان دبك شدان كرين تنوع رؤية نبض سيبو كنولية لكن وقت باكر ما أنت والسلام عليكم. الله يرضى الراشين كان وحنا سوق قارسي ganacsatada iyo dadka muxsiniinta oo gobolka mudug jooga iyo maamulka oo iswata gurmadka abaaraha waa intii horeyso hadda ay keenaan raashin buu ahayo 200 oo qoys loo qaybinayo dadka degmada u soo guuray oo dhan waa arkayseen oo ilaa 20 qabiil bay ahayd dadka loo qaybinayay raashinkan raggiina aan lagu wareejiyay waxaan maray groupka qaado waa ka daba tagaynaa dadka raashinkan lagu wareejiyay waxa laga yaabaa kumanaan magaca inay ka badan yihiin waa dadkii deegaanka laakiin dadku dad baahay bay leeyihiin number 1 raashinkan magaalada wax kuma laha
waa baadiye raashinka dadka baadiyaha degan waa qodobkeeda labaad ilaahay dartii annagu raashinkaasi intuu ahaa baan qaybinay hal qoysna kama maqna waxaa la rabaa dadka sida dadka ugu hooseeyo oo ay sakada ku baxdo ama ilaahay u gartay oo ah dadka ugu maskiisan raashinka in la gaarsiiyo ilaahay dartii oo aad raashinkaasi ma aha qabiil ma aha hadda qabiiladu ka qaybsteen laba walaalaha saddex walaalaha haddii dadka ugu hooseeyaan oo meel degan yahay dadka ugu hooseeya raashinka inaad gaarsiisaan mana gaari karo dadka ugu baahida badan ma gaari karo laakiin inaad raashinka u cadaado fursaa dadka masaakiinta dadku waa is yaqaanaa magacu hadhow waa baxayaa intaasaan rabnaa ilaahay dartii inaad ku hawlgashaan aad baa u mahadsantihin